بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حلقة عنوان كيدو حوية حسن الشيخ ومقوسته قفكنا هدانو قوسا إساقا قوسا. الحقيقة مرنبا أحمد محمد إسلام قلبي مدوبي كما أنا السجين كما أنا فشينين كما أنا فيلين إن إساقا إيا مدحوين حسن الشيخ ميل دحي السجوي مادان محايا أحمد وعميل ورنك عميلك أول حراه نك عميلك آخر شلق مدونه قضبك انتاسا كلها فيا. الحقيقة مدحوينو واتقي وسوقوا الاستبان عنيقو سياسيا انقبا هدي بيش عالم كتاي أحمد مدوبي ووتصي haddii ay tahay mucaaradkii magacaabay mustaqbalka Soomaaliya wuu tusay, hadday tahay Soomaalida wuu tusay. madaxweynuhu waa dhoofay, Kismaayo ka degay, isagaa tanaasulkaa la yimi, isagaa ummadda qancinayay, wuxuu kala soo noqday rajo la'aan. miyaan markaa la oran karin madaxweynuhu waa maquuste? waxaan la qabaa oo aan leeyahay oo aan ku talinayaa malafyadaydii hore iyo xalqadahayga hore dib u raaca inaan rajadeed Axmed lahayn. mar hadday sidaa tahay tallaaba madaxweynaha la gudboon baan kula talinayaa. waa inaad awood buuxda siisaa prime ministerka. waa kow. iyo golaha wasaaradda ee ka soo jeeda gobolka Gedo si ay halkaa uga soo dhisaan Jubbaland. waxaad ciidan hayso geey, waxaad lacag hayso geey. dadkaa Garbahaare ku nool dhowr goorood ayay kaa niyad xumaadeen. niyad sami sidii aad u geyn lahayd geey. adigu tag. nabad baan raadinayay oo aan idinkaga maqnaa. waxaad tabanaysaana ka raalli ahaada dheh. halkaasaa xalku ku jira iyo xaqiiqadu. haddii kale madaxweyne hanala meeraysan. siyaasaddaada dibaddaannu ka joognaa, bit by bit baannu ula soconnaa. war qodobkaa bal xasan sheekh iga gaarsiiya. alxaqiiqa Soomaaliya camiilkaa ku badan. camiil u shaqeeya dowlado ajnabi ah oo ka badan boqolaal. oo hadday maanta dowlad wanaagsan oo adagi ay jiri lahayd xabsiga lagu guri lahaa. nimankii dowladdii militariga ah riday Soomaali inkaar bay ka shaqaysteen.
mid waliba wuxuu leeyahay sidan haddaan moodaayo Itoobiya intaan tago qori ma qaateen. Very sorry. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. madaxweyne tala kula gudboon tala Soomaalinimo ah, tala wadaniyad ku dhisan. haddaan anigu halka aad fadhiyi lahaa saaka Garbahaarey baan ka degi lahaa, anigoo ummaddaa Soomaaliyeed ee baahida u qabta dawladda la iga raalli ahaada. Axmed baad naf moodday. waynu wada joognay Itoobiya 14 habeen baa Axmed loo taag la'aa. waa tanaasushay. inta goor aad tanaasushay miyaadan garanayn? miyaadan taariikh hayn? miyaadan Axmed baran? maalintii dhowaad aad tagtay waad fiicnayd, tanaasulkay ka mid ahayd. laakiin dawladda ajnabiya nimay ka dambeeyaan inaad u fakartaa bay ahayd. walay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. nimanka la yidhaahdo Absame, Ogaadeen, Koomade, waxay doonaanba ha sheegteen. dhowr goorood baan la hadlay. waxaan idhi war Axmed waxaan dhibaato ahayn idinkuma hayo. ra'iisul wasaaraad yeelateen, taageera ra'iisul wasaaraha. Axmed waad ka qaadi kartaan meesha haddaad tihiin nimanka Ogaadeen ee Kenya deggan, hadday yihiin siyaasiyiin iyo haddii ay yihiin maalqabeenno. laakiin idinkaa ku haya. madaxda Soomaalida ee Kenya joogta qaarkeed baa ku haya. arrinkaas waa arrin taariikhda gelaya, waana arrin Ogaadeen lagula xisaabtami doono. burburkii Soomaaliya, xorayntii kililka qayb bay ka ahayd inay Soomaaliya burburto. dawladdii Maxamed Siyaadna cidda wax ku qabtay iyo kuraasta aad haysateen nin hayaa ma jirin. waxaad ku soo ururteen saaka inaad Axmed oo 2 kiiloomitir oo Kismaayo aad jooga aad ku ururtaan oo aad u heelisa. ilaahayna wuu idin arkaa, Soomaalina way idin aragtaa. taariikh xunna waad gasheen. wuxuunbaa mustaqbalka iman doona. qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay, ra'iisul wasaare fadhi kuuma yaala ka kac. sidii aad Jubbaland u dhisi lahayd oo ninna aanu kugula murmeen, gardarrana ku saareen, adeeroo falowgeedii qabo. idin tilmaannay, idiin sheegnay, idinku akhrinay. waa degala'dihiin. muddo 10 maalmood ah waa in laga degaa Garbahaarey. Soomaali Axmed uma rahmanaan karto. Axmed waa masiibo Soomaali lagu soo dhex tuuray. 8 sannadood baan ma Axmed lahaa waa masiibo.
maalin baa qabashadiisu u dhoweyd waa wakhtigii farmaajo madaxweynaha ahaa yaa ka furfuray qabashada xasan sheekh maxamuud sheekh shariif cabdiraxmaan cabdishakuur dadkii diyaaradda raacay ee kismaayo tegey ayaa yidhi farmaajaa gardaran bal maanta yaa gardaran subxaan allah qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa nimanka la yidhaahdo sadadaarood ee deegaankaa deggan waxaa dhexdiinna yaal ilaawa oggolaada dhisme maamul isu tanaasula waxa dawladdu idinla timaaddo aqbala idinkuna wixii aad fikrad haysaan ku biiriya halkaa waa in maamulkii ka soo baxaa war qodobkaana nimankaa sadadaarood iga gaadhsiiya alxaqiiqa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار